jawaabteedu waxay tahay sheekhu mal waa sheekh Kenyaana weey Kenya degay baasaboorkeedana haysta Soomaali ha noqdo waana sheekh ummadda Soomaaliyeed oo dhan ah ummaddu wada dhageysato kuwa maagaya kuwa kaleba waa dhageystaan sheekhu mal wixii u muuqday haduu Nairobi ka yiri oo adigu aad Somaliland keentay jawaabti oo walibana umal aadan ku kaaftoomin culimo kale aad dusha ka fuushay oo aad isiri sheekhu mal wuxuu u socdaa nimanka inuu badbaadiye jidgooyo u galo qoortaba ka go maxaa la yiri weysha gowrac saxba ku qoostay in asraada sheekhu waxaanu wadaba qolu ku difaacaya qolada madaxa ka jara deetaynu ka hadlaynaa tan noocaas weey marka adiga bilaabay haday tahay inaad halkan keentay iyo haddii ay tahayba sheekhi kula hadlay walibana cadeeyay inaanu kamid ahay aad wax weeye ula baxday kulli qaacidadaas ay ku socdaano waxay leeyihiin mar hadduu la shaqeeyo haba yiraahdo kun jeer kama midihi huwa mithlahu walla mid weeye mar haddaanu ka digay oo aanu tabdiicinayn xukunkiisu qaadanaya qaacidadaas ku socota muxaadarooyinkan iska jeedin mayna ujeedooyin baynu ku xaqiijinayna koo waxa ka manhajka salafiga saxda ah in dadka loo cadeeyo oo waxyaabaha lagu soo daray dheeraadka laga saaro isxaaq ma diidin buu yiri xaqda dambaan diiday xaqda dambaynu la dagaalamay